waxaan doonayay in aan cabsida fagaara ka hadalka waxaa suuragal ah inta ay noloshu bilowga ku tahay ee aad ardayga tahay inaadan fahmin muhiimadda ay leedahay fagaara ka hadalka ama aanay kugu cadaan balse markay noloshu sii socoto waxaad ogaanaysaa in aad iyo aad ay muhiim u tahay inaad barato xirfadda fagaara ka hadalka inaad awood u yeelato adigoon waxba cabsanaynin inaad fikradahaaga soo jeedin karto inaad fikradahaaga soo jeediso adigoo ay ka muuqato kalsooni buuxda adigoon khalkhalsanayn inaad fagaare ka hadli karto su'aalaha inaad si kalsooni buuxda aad uga jawaabi karto markaas si fagaare ah lagu weydiiyo saaxiib haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo page-ka like noo dheh flowna dheh sidoo kalena subscribe noo dheh kanaalkeena oo share garee oo gaarsii saaxiibo badan oo run ahaantii doonaya inay si weyn ugu xildheeraadaan fagaare ka hadalka su-aasha koowaad ee muhiimka ah aan doonayno inaan isweydiino waxay tahay fagaara ka hadalku ma wax loo dhashaa mise waa wax la barto dad badan waxa ay marar badan uga fadhiistaan oo ay fagaaraha uga hadli waayaan waxay dhaxaan annagu ma nihin dad u dhashay fagaara ka hadalka taas ayaana keentay inaanu awood u yeelan weyno inaanu fagaaraha ka hadalno walaal adduunka wax yaala oo aan la baran ma jirto jawaabta haddii aan si gaaban kuu siiyo waxay tahay haa dadka qaar way u dhashaan sidoo kalena waa la bartaa waxaa jira dad fagaara ka hadalka u dhashay sidoodaba balse aan training samaynin taasna waxay keentaa in xirfadaasi aanay noqon mid soo muuqata oo ay sameeyaan sidoo kalena dad ayaa jira fagaara ka hadalka aan u dhalan balse training badan iyo tababar badan iyo isku dayo badan oo ay la yimaadeen ayaa waxay sababtaa marar badan inay fagaaraha si cajiib leh ay uga hadlaan kuwaasna waa kuwa bartay marka waana loo dhashaa waana la bartaa marka ka waran adigoo markii horeba u dhashay sidoo kalena tijaabooyin badan sameeyay sidee baad ku noqonaysaa fagaara ka hadalka caadi ma noqonaysid yani waxaad noqonaysaa qof ummadoo dhan yani si la yaab leh ugu qanciya fikradihiisa haddaba saaxiib haddii aad isku dhiban tihiin fagaara ka hadalka oo aad cabsi dareento haddaba qodobadan aan ku siinayo ayaa run ahaantii muhiim ku ah haddii aad dabaqdana aan rumaysanahay inaad kaga gudbi karto marka koobaad waxaanaad fagaaraha kaga hadlayso ha kuu noqoto wax kuu diyaarsan oo intaa aanad bulshada soo hor istaagin ama meesha aad ka jeedinayso ha noqoto wax run ahaantii aad si wacan ugu garanayso mowduucanna ha noqdo mowduuc run ahaantii aad jeclaysanayso inaad ka hadasho run ahaantii taas waxay ka qayb qaadanaysaa kalsoonida badan ee aad u muujinayso bulshada marka aad u jeedinayso mowduucaas run ahaantii aad doonayso inaad soo jeediso ha isweydiinay su'aalaha maskaxdaada ka dhex guuxaya ah talow khudbadaadii ma laga heli waayey talow miyay cajabin weyday talow mise khaldan baad u taagan tahay talow wax khaldan baad tiri iska dhaaf marka aad stageka taagan tahay looma baahna su'aalahaas inaad isweydiiso waayo su'aalahaas waa kuwa kugu keenaya inay ku khalkhaliyaan khalkhalka kadibna kalsooni darro ay kugu abuurayaan kalsooni darrada badanna waata keenaysa cabsida aad u awoodi weyday inaad soo hor istaagto bulshada fagaara ka hadalkana aad u sameyn weyday balse laakiin waa inaad kaliya focus garayso programkan aad ka hadlayso oo aanad ku mashquulin dadku waxay u arkaan iyo sida ay u malaynayaan kaliya soo gudbi waxaanaad meesha u soo istaagtay ma tihid qofkii ugu wanaagsanaa ee stage soo istaagay ee wax jeediya mana tihid sidoo kale kan ugu xun khaladaad wuu imaan karaa sidoo kalena sida aad ugu tala gashay wax walba wuu suurtogeli karaa marka ugu horeysa ha filanin inay wax kasta sidii ugu quruxda badneed u dhacaan waxyaabaha qaar ayaa khaldami kara waxyaabaha qaar ayaa kuu suurogeli waayaya sidaad u doonaysana noqon waayaya laakiinse waa in aad mar walba noqoto qof kalsooni badan muujiya oo aan isku mashquulin waxay dadku ka malaysanayaan waa inaad si caqliyeysan ula socoto dareenka dadka aad la hadlayso waxaanaad u jeedinayso dadka haddaanay dareen ahaan aanay fahansanayn run ahaantii waa waxyaabaha keenaya kalsooni darrada marar badanna kugu abuuraya cabsida ah talow dadku ma fahmayaan waxaanaad sheegayso amaba adiga ayay wax kaasii yihiin haa waa inaad garato audience-kaaga waxa aad kala hadlayso iyo waxaanaad u jeedinayso haddii ka waran carruur yaroo 5 jir aad uga sheekayso siyaasadda iyo arrimaha geeska may fahmi karayaan waa maya
carruur yar markaad hor taagan tahay oo inaad isku daydo inaad filin kartoon iyo waxyaabo ay fahmi karaan oo caqligoodu qabanayo aad uga sheekayso haddii dad waaweyn aad fagaaro ugala hadlaysana waxyaabo caqligooda run ahaantii ay ka fikiri karto ama ay qaadan karaan inaad la wadaagto oo aad kala garato ciddan aad la hadlayso sidoo kalena aad dareenkooda aad si guud ula socoto ta kale aan kula wadaagaya waxay tahay adigoo gurigaaga joogo inaad tijaabooyin badan aad samayso adigoo qolkaaga iska fadhiyo anigu barnaamijyada aan mararka qaarkood qabanay waxaan saarkaa anigoo nafteyda keliya la sheekaysanayo oo iska dhigay inaan dad badan u waramayo sidaas deetana aniga dhawaryaa maad miir qaba maxaad keligaa iskula hadlaysaa markaas ayaan caadi maaragtay laakiinse wax kale igama aha keliya waxay iga tahay tijaabo iyo inaan isku aadiyo erayada isku habboon aan oran karo marka waa inaad tijaabo badan samayso try makes perfect waa inaad mar walba tijaabada aad badiso aad ku doonayso inaad fagaare ka hadasho waxaa muhiim ah inaad ku tijaabiso dadyowga ka agdhow asxaabtaada familkaaga iyo asxaabta aad isku galaaska tihiin waa meesha koowaad ee laga bilaabo haddii ay yaraantii kusoo dhaaftay waxaad fursad u haysataa inaad asxaabtaada ku tababarato oo run ahaantii markay 3 iyo 4 yihiin aad run ahaantii isku daydo inaad sidii wada lamida adigoo run ahaantii fikradaada la wadaagaya oo run ahaantii u soo gudbinaya asxaabtaada si ay markaa kula qaataan ama ay kula arkaan waxaan aad arkayso waana talaabada koowaad sameynta sidoo kale markaad familkaaga joogto inaad si cajiib leh aad run ahaantii fikradahaaga ugu soo bandhigi karto waxaad aragtana aad ugu sheegi karto meelaha ugu fudud ee aad tijaabooyinkan ku samayn karto waa goobaha shaqada tiimkaaga qayb weyn ayay ka yihiin sida aad wax u fahansiiso ama aad kula hadasho inaad u soo gudbiso fikradaha ama tabaha aad u aragtay inay fududahay inaad shaqada u qabataan saaxiib yaal intaas waxay noogu eeg barnaamijkeena insha Allah intii ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij kamid ah waxaan idin leeyahay nabadgelyo